European Union. The symbolic signing of today's 102 million euro underscores EU's testament and commitment to ensure that Somalia actually continues progress. ومالين آدي وين ما أنت وحن هالكان كلهن شر لما جيسود أو دولة الصومالية أو أنكم مثلين عنيك صاحب كي بيحي يو ما ده حدا نقص عطي European Union كأما الدولة أما مع كلها ميدوغا يوروب شر آدي وقيمة بدن سيدا أكتهين European Union كوحي آد صاحب ولدها دولة الصومالية وبيك سبورتر partnership حوق لنا نقد حيو كلن كان وحكو ساب سنة مشاريع هورمارينات الدولة ميدو يوروب أي سيان دولة الصومالية سنة كلا صور دافي أيو قبل قرشيه يوحي سأي سعودين واللعق جارس إلا يبقول يلبا مليون أو يورو ولو ترجع لإن إلا يصدق يأفر سنة جدوده مشاريع لو قبته بقول يلبا داس مليون وحلو ترجع لي إلا يأفر قيبات إن لو عاوي أو الدولة دين الشعب كأنه كمدة أو كسب سنكو وحبرشة كور إن لو قاعدة access كوحبرشة أما education access إن كور لو قاعدة إن أرض بدن أو الصوماليات إن إسكول كجاران لو عاوية تيادا وحبرشة الصوماليات إسكول هذا محن كلها المها وحكود كتان قلبك بوجاكتا وحكستو كور وقاعدة توبرك معلمين يسيدو كلنتا لعقته وحال عق بدن قيب بدن كمدة إلا يسد مليون يورو سهل كان كأركيسين budget support وحلا ده إن لو support كريه ميزانية الدولة الفدرال كي الدولة ده قيب تكأها محبناها كدولة الصومالية والعق أيضا آدي في عن أو لو support كريه budget كصوماليات سد حق أي دولة قوية لا تهولها هذا إني أقبسن كرته آدي أيضا مهدوتها وأنا عدد العقه وأن يرين وحسيدو كلا كمدة وحيابها العقها ماشي اللي بحنيه وحلا ده stabilization أما وحلا ده دولك لقى حوري nimanka umadeena dhibay al-shabaab in basic services ka iyo waxyaabo lagu support garana lagu bixiyo waxa kamid ah lacag lagu bixinayo ilaa 27 milyan waxa la dhaho migration ka in lagu support gareeyo ama programyadooda iyo wax oo dhan oo kor loogu qaadayo lacagtan 102 milyan bis ma ahan lacag ka badan hore ay European Union ku siiyeen Soomaaliya abaal badan ugu hayna waa ugu mahad celinayna annagoo ku hadlayna magaca dawladda xiriirkeena iyo wada shaqaynteena iyo garab istaaggeena macno weyn u leedahay shacabka Soomaaliyeedna waa ka mahad celinayaan annagana ka dawlad ahaan waxaan ballan qaadaynaa lacagaha canshuur bixiyaashooda ay ku tabaruceen Soomaaliya in meeshii loogu talagalay lagu bixiyo dawladdeena ay noqoto dawlad isla xisaabtan iyo hufnaan iyo maxaan ku dhahaa shaqada saasiyaan aad iyo aad wasiirka ayaa runtii dhameeyay oo tilmaamay ujeedada kulankan maanta aynu isugu nimid safaaradda aynu kaga hadlayno iskaashiga ka dhaxeeya labada dhinac dawladda Soomaaliya iyo midowga Yurub iyo waxa uu daaran yahay waxaan rabaa inaan ku kabo laba arrimood koow horta inaan xoojiyo bogaadinta iyo mahadnaqa aan u jeedinayno midowga Yurub oo runtii aad iyo aad qolo inoola shaqeyso inoogala shaqeysa arrimaha iskaashiga deeq bixinta iyo maxaan ku radaa kaabayaasha dhaqaalaha iyo horumarinta dalka waxay shaqada ugu laxaadka badan nagala qabtaan dhismaha dawladda haday tahay kobcinta dakhliga haday tahay xoojinta hay'adaha dawladda iyo haday tahay arrimaha loo yaqaano stabilization-ka iyo xasilinta af Soomaaliga lagu yiraahdo waxa kaloo door laxaad leh ku leeyihiin oo dawladda si joogta ah u siiyaan ka miisaaniyadeed oo haddana kamida package-ka hadda la saxeexayo 120 milyan euro 30 milyan oo loogu talagalay inay noqoto ka miisaaniyadeed oo la isticmaali doono 3 sano ee soo socota ayaa iyaduna qayb ka ah oo si joogtayn doonta kabkii hore ee dawladda la siin jiray oo loogu talagalay in lagu abuuro fursad waxbarashada kor loogu qaado fursad maamul wanaagga kor loogu qaado fursad daahfurnaanta kor loogu qaado dawladdana culaysyada dhaqaale ee ka saaran arrimahaas qayb kamida lagaga khafiifiyo marka aad iyo aad baan runtii ugu mahad celinaynaa uguna bogaadinaynaa doorka midowga Yurub uu ku leeyahay dhismaha dawladnimada Soomaaliya waxa annaguna aanu ballan qaadaynaa horena runtii aanu u wadnay in
taageeradaasi ay noqoto mid sida ugu wax ku oolsan looga faa'iideysto dadka Soomaaliyeed gaadho ay ka faa'iideystaan qayb walba halkii loogu talagalay ay u marto waxa kale oo aan aad iyo aad u jeclahay inaan fursadan uga faa'iideysto inaan uga mahad celiyo madaxa arrimaha iskaashiga caalamiga ee midowga Yurub oo shirkii shalay toole geeska hindisaha geeska Afrika iyaguna la ahaa shir guddoon oo maxaan ku leeyahay safarka ay ku timi magaalada Muqdisho dartii uu ahaa inay shirkaas nagala qayb gasho nala shir guddoomiso sidii quruxda badnayd ee hogaaminta ku dheehnayd ee shirka runtii ay noola abaabuleen noola daadihiyeen ayaan iyadana aad iyo aad ugu mahad celinayaa uguna bogaadinayaa madashaasi waa madal runtii wax weyn u ah dalkeenna hadda Soomaaliya ay guddoon ka tahay labada sano ee soo socota guddoon ka ahaanayso lagu qorsheeyo arrimaha horumarinta ee ka dhaxeeya gobolka haday tahay kaabayaasha dhaqaalaha haday tahay ganacsiga haday tahay arrimaha dhismaha adkaysiga bulshada iyo haday tahay kor u qaadista karaanka aadamaha afarta arrimood baa runtii diiradda lagu saaraa shalayna waxa diiradda la saarayay tamarta iyo kaabayaasha dhaqaalaha sida ay muhiim ugu tahay tamartu ama korontada waxa loo yaqaan sidii loo heli lahaa koronto jaban oo qof kasta gaadha maalgelinteedina loo helo midowga Yurubna runtii madashaas maalgeliyaasha ugu waaweyn ee gobolka ka mid yihiin oo Soomaaliya qayb ka tahay marka bogaadin baan u jeedinaynaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin thank you very much for this opportunity we are very grateful for this continued and sustained collaboration between the Somali government and the European Union. The symbolic signing of today's 102 million euro underscores EU's testament and commitment to ensure that Somalia actually continues progress. And we're very grateful for that continued partnership and support. We're also very grateful for co-chairing yesterday's Horn of Africa initiative, which has been very successful, and we really commend your leadership, Madam Marian. And the European Union is a steadfast partner for Somalia and for the Horn of Africa. So this is an opportunity that we can further deepen and broaden our collaboration, and the Somali government is committed to sustaining the reform momentum, and we are also committed to strengthening fiscal institutions and the broader governance institutions. We're committed to transparency and to ensuring that these resources are utilized as efficient as possible in a transparent manner. So we're very grateful. Thank you so much.